بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa farxad weyn noo amaanta uguna bishaareynayaa dadka reer Puntland inaan halkaan isugu nimid inaan ku saxiixno heshiiskii dhismaha dekada Boosaasood oo muddo aad sugayseen oo soo dhamaaday muddo waqti dheer ayaan hawshan ka soo shaqeynay juhdi badan ayaa naga galay waxaan ahaa mashaariicda aan ballan qaadnay kaabayaasha dhaqaalaha dalka inaan wax ka qabanno waxaan maanta ku faraxsanahay marka mashruucaas aan halka sano iyo ku dhawaadka aan ka soo shaqeynaynay in maanta hawshiisa gabagaba tahay inaan ku socon heshiiska oo saxiixay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdullaahi Jaac Saalax iyo madaxa كمانيجا مارين دايفرز عبد الله درويش أو كان صحيحة شيسكي طبعا فاهمت شيسكا يو دكتة يو طلعين هذا يحج بجذا أنت لجالسين يو هرمرك الله سعود أما هنقطو كونتينر تيرمينال كي أما هنقطو أويل ديبوسكي يعني لين هذا يسريده هالنقطة infrastructure كامس كا يعني هذه أوبهرين كد عالمي هنا السميان سبع سنة أوبلابان وحان نقول شيء إن هوشي سد دقدقة أوبلابته تاج بوج كورية واو يمدكده واو جوجا كبعدنا الدي وحي معنا يا قلب كي نقول السلاح دكده أو صور صعدة إن شاء الله هوشة سنة سبع سيالة أوبلابان دونتا وقت يرى كوبا جديدنا waxaan rajaynaynaa Puntland ay ku hesho hadda airportkii baa dhamaaday dekadana waqtigeedii waqti dhow oo degdeg ah inaanu helno dekad caalami ah oo Puntland ay leedahay oo dekadii koowaad waxaan kaloo idin sheegayaa in kuwa badan oo kale ay ku daba jiraan oo iyana ay dhawaan inoo bilaaban doonaan ka shaqayntoodii iyo surveygoodii oo noo bilaaban doono ayaan rajaynayaa وبلغات كانوا بلغات نايف تذكر بدلان خرمر لتعبان كرو إذا كابياش نقالها لا نقارسينه ويبلغتي وعوضنا إن شاء الله وحبضنا وكرو في الحلنا ورغب بشارين دون تذكر بدلان وأنا صوص عدان خير يقول أيام الجينية عرب مركا إن كداس بلارين تهدي اسمه هذا لقى قيب قاتو دتكو أي أفضل أيام إن هوشاسي أي سيف عرب بلغته لسود ويو waxa aan ugu baahi badnayn bay ahayd ballanqaad bay ahayd muddo sugaysan waligeed baa sugaysan dekadaas in la ballaariyo oo la dhiso maanta ayay timid aan fursada ka faa'iideyno dhamaanteen ka xukuumad ahaan ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan intaba aad iyo aad u mahadsantahay Abdullah Darwish thank you Mr. President and ministers basically today we have signed an agreement for Bosaso Port and we will start the project ongoing for expanding of the port and reorganizing of the port. As we discussed, me and the President, for future projects, other ports in all over the Puntland itself. Basically, that we are ready to support and to help the government of Puntland for a better future, for a better way of life. I hope it's a good start for everybody in this country, and I hope we can work together for the best future for Bosaso or for Puntland itself. Thank you very much indeed. Thank you for your time. marka ugu horeysa waxaan leeyahay waftiga waalaheena oo yimi soo dhawaada dalka waa dalkeena marka labaadna waxaan leeyahay hadda wixii tafaasiil ama ku saabsan mashruuca madaxweynaha ayaa sheegay annagu waxa weey taayado kaliya inaan goobjoog ahaano oo aan taageerno waxaan kaliya dadka xasuusinayaa inuu mashruucaanu noo yahay muhiimad gaar ah noo leeyahay waxa la yiri ilaahay waxa lagu bariyaa weel weyn baa lagu bariyaa dekada awalba waa lahayn laakiin balaarinteedu muhiimad gaar ah ay noo leedahay
waana la wada ogyahay muhiimadda ay leeyihiin kaabayaasha dhaqaaluhu dhinaca horumarinka waxaa nasiib wanaaga in hadda dekadiina la ballaarinayo garoonkiina hawshiisa ay socoto waa mahad ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu laba mashruuc oo qiimaha gaarka u leh Puntland oo dhan ama Soomaaliya inuu noo hirgeliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabada annagoo ku jira dhulkaas noo hirgeliyo dadka Puntland iyo kuwa Boosaaso iyo kuwa meel kasta joogana waxaan leeyahay bashaariicdeena soo dhaweeya difaacda garab istaaga intaas ayaa leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.